Love you, baby. You go, soo dhawaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhawaada dhalinyaro dhamaantiin gacmo furan ayaad igu soo dhaweynaya maanta waxaan neehaynaa xog muhiim ah oo rasmi ah marka sidaas awgeed akhyaartuna soo badato soo dhawaada videogana share la dhaw share dha intii khadka ku jirtana share dha xog xasaasi oo muhiim ah ayaan ka hadli rabnaa ma fahanteen marka soo dhawaada dhalinyaro dhamaantiin videoga share dha si akhyaartu soo badato share dha asxaabtii inta soo badanaysa ayaan sugaynaa malay maqlaa horta dhalinyaro malay maqlaa waatay ujeedada aan soo galay maanta live-ku waxay tahay ninka oo la leeyahay daahir qudunwada calisow ayaa waxa weeyaan aan arkaa markasta isaga oo live-ka ka cambaareynaya mudane farmaajo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed isaga oo markasta cambaareynaya ayaan arkaa taasna macnaheedu shalay un bay ahayd marka uu lahaa aniga iyo qoyskaygu waxaan nahay farmaajo maantana saad ujeedaan intuu video soo jarjaray ayuu waxa weeyaan isaga oo uu ku soo cambaareeyay madaxweynaha ayuu ku soo cambaareeyay in uu waxa weeyaan uu raba fikrad qaldan oo ka dhaadhiciyo dhalinyarada Soomaaliyeed isaga oo raba inuu isku diro bulshada iyo waxa weeyaan madaxweynaha haddaba daahir calisow ujeedada uu leeyahay ma fahansantiin ujeedada uu leeyahay waxa weeyii kaliya ta inuu iska horgeeyo shacabka iyo waxa weeyaan farmaajo iyo iska horgeeyo shacabkiisa maanta waad u jeedaan dhalinyarada waxa weeyaan ummadda afka Soomaaliya ku hadasha sida ay ugu faraxsan tahay madaxweynaha waad u jeedaan shalay toole uu dalku bilaa rajo aha maantana dhalintii waxa weeyaan dhalinta Soomaaliyeed wayna ku faraxsan tahay rajo weyna waan qabnaa rajadii laakiin ma aha inuu markasta waxa weeyaan qof kulba kii xilka haya ina marna la soo dhaweeyo marna la caayo run ahaantii waa wax aad looga xumaado mideeda kale daahir calisow waxa la sheegay inuu waxa weeyaan oo xog muhiim ah aan ka haynaa in uu waxa weeyaan uu ku qaatay laaluush si uu cambaareeyo mudane farmaajo shalay toole markii uu sheegayay uu lahaa aniyo familkaygu waxaan nahay farmaajo markii uu lahaa shalay toole waxa weeyaan wuxuu ka rabay jago mideeda kale wuxuu ku tilmaamay oo arkay video isaga oo ka hadlaya oo leh waxa weeyaan xilka farmaajo waxa uu dhiibay waxa weeyaan cid walba oo farmaajo uu tilmaamay waxa weeyaan cid walba farmaajo uu magacaabay xil isaga oo ku tilmaamaya waa ayeydii buu daris lahaa waxa weeyaan abtigii baa dhalay habartii baa ya waxa weeyaan wax isku yihiin war waxaas maaha ya akhi waxa weeyaan horta marba hadii xil uu ninku uu hayo mas'uuliyadu macnaha in qabyaalad la geliyo ma aha qabyaalada waxa weeyaan qabyaalada iyo quranku wuxuu inaga harayaa marka ay Soomaali hadii midnimadeeda la rabo waa ina horta qabiil halka la iska dhigaa ma aha qofka ina lagu qaato waa reer hebel ma aha ina lagu qaato waa hawiye waa daarood waa iidoor waxa in lagu qaato ma aha qofka bilaadanka waa ina wax qabadkiisa lagu qaado muhiimadu qofka bilaadanka waa ina wax qabadkiisa ku qaadato taas waa qalad inaad tiraado hebel waa reer hebel wuxuu siiyay nin ina adeerkii ayuu siiyay waxaas waa wax laga fiican yahay run ahaantii aad iyo aad looga xumaado weeyi oo waxa weeyaan aan wanaagsaneyn weey halo السلام عليكم سو دولن
barnaamijka waad la socotaa waan malinaya baro. haa marka maxaad ka aaminsantahay adiga daahir cali soo waad ujeedaa waxa weeyaan waad la socotaa baan u malaynayaa waxyaabaha uu soo geliyo facebooka fikradiisa maxaad ka aaminsantahay iyo cambaareynta uu farmaajo cambaareynayo. waan gartay. waa sax. صح wuxuu dhahay waxaan muqaadaraadka waxaan ugu jecelahay khamrida iyo sigaarka iyo waxaas miya. waan gartay. صح waan gartay marka taas macnaheedu waxay cadeynaysaa ninkan inuu ka rabeeyay waxa weeyaan inuu jaga ka rabay ama ujeedada hadda uu cambaareynaya ay tahay waxa weeyaan afaara qabiil. صح marka waxa weeyaan waxaad leedahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee macnaha waxa weeyaan mucaaradka ku ah madaxweynaha ayaa waxa weeyaan laaluusiyo sidaas awgeed ayuu waxa weeyaan ninkan u cambaareynaya maadaama uu shalay toole ahaa nin waxa weeyaan u sacabatumay maantana uu aflagaadinayo. صح waa fikrad wanaagsan baro waxa weeyaan aad baad ugu maadsantahay fikradaad nagala qayb qaadanayso aniguna taas ayaan kula qabaa. هاي صاحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدكي سما مقشان هرت دقيستا وحوين نيكا وحوين هذا عدكي سما مقشان. ها سود وهذا أنت دمانتي وان أنت سلانت وان كقاضي أنت داون يسبب فيديو جن شير لها وحوين مركا وحن لنا هي وحوين داهر قرن وذا علي سو وحن لنا وحيابها عاد وضو بليس كجوجي iyo baraha waxyaabahan baraha bulshada aad soo dhigayso waa waxyaabo aan wanaagsaneyn umada afka Soomaaliya ku hadasho ayna ku kala fogaanayso waana arin aad looga xumaado waana wax laga fiican yahay inaad tiraado waxa weeyaan farmaajo wuxuu cid qof kasto u magacaabo xil inaad ku tilmaanto macnaha habartii uu daris la ahaayo ayeydii baa dhashay iyo abtibu wiilka oo haayo waxaas waa wax laga fiican yahay qofka bilaadankana inaad ku taageerto ma aha run ahaantii inaad ku taageerto waxa weeyaan qabiil inaad ku taageerto ma aha muhiimadu waxa weeyaan qofka bilaadanka inaad wax qabadkiisa ku taageerto weey faanti abti ciiltire waan ka qaaday abti salaan lamida ayaan hawada ku soo marinaya abti mahadsanid abti libaax waa salaamantahay ninkaas aad ka hadlayso waa dulli aflagaadoonaya iyo xumaanta arsaaq ku ridaya waana nin la yaqaan waxba waqtiga ha ku lumin abti aad iyo aad baad u maadsantahay balse laakiin waa runta horta hadalkiisu wax laga soo qaato ma balaha balse laakiin waxaan ka xumaaday waxyaabaha uu ka hadlayay run ahaantii waa waxaanay noo wanaagsaneyn haddaan nahay shacabka ummadda Soomaaliyeed sideedana de horta kulley waxa weeyaan qofka bilaadanka haddii uu xil haayo mucaarad fara badan ayuu yeelanayaa mucaaradka ha yeesho ma xumo laakiin in macnaha lagu cambaareeyo waxyaabo aanan ka suurtoobin run ahaantii waa wax aad looga xumaado sida la wada ogyahayna mudana farmaajo waa nin waxa weeyaan haliyay deeqsiye weeyaan oo ay ku faraxsan tahay ummadda Soomaaliyeed ay ku faraxsan tahay marka daahir cali sow inuu waxa weeyaan markaas dadka Soomaaliga uu waxa weey dadkaas ku faraxsan maanta nin halo xogaysu
markaa daahir calisow inuu ummadda maanta oy dadkii rajo ay yeesheen oy dalkii ay rabaan waxa maanta oy ummadii soomaaliyeed marka ay rajo galeen waxa weeyaan ay dalkii rajo ka yeesheen haddii haddana lagu rido moraal jab run ahaantii wallaahi waa wax aada foolxumo aada iyo aada u weyn weeyaan. markaa niyo arrinkaa aada baan uga xumaaday, sidaas awgeed baanaan usoo galay khadka. waxaanan leenahay daahir calisow waxa asalaamu calaykum. سعيد عبد الكريم soo dhawow marka hore maxaa waxa weeyaan waad la socotaa baan maleynaa barnaamijka. marka ninkan fikradda daahir calisow iyo cambaaraynta uu ku wada mudane farmaajo maxaad ka aaminsantahay adiga fikradaada? waan gartay. waan gartay. waan gartay. صح.